بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرنتان waxaan u dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne email badan iyo isku day aan sameeyay runtii isku day inaan sameeyo xafiiskaaga anigoo garan kara waliba xilligan inay tahay xilli adag oo kala guur lagu jiro oo maalmihii ugu horeysay shaqada muhiimadaaduna ay aad u fara badan tahay waxaan ka maarmi waayay inaan si furan aan muuqaalkan kuugu soo dhigo baraha bulshada marka hore ku salaamaya oo aan ku soo duceynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fududeeyo xilka iyo hawlaha culus oo ku hor yaala mudane madaxweyne sida ay qoreen joornaalada Kenya sida uu saaka afkiisa ka yiri wasiirka ganacsiga waddanka Kenya waxa dib loo furayaa diyaaradihii qaadka ee dowladda Kenya dabcan waan fahmi karaa ma jirin qorshe degan oo baarlamaan mariyay oo caafimaad iyo danta bulshada iyadoo lagu saleynayo looma joojin siyaasad saas oo salku ay samay jirin laba xukuumadood oo ishayay bay ahayd laakiin si kala hadii loo fiiriyo arrin aad looga faa'iideeyay waxaana ka tusaaleynayaa kaliya qaadka diyaaradaha Kenya waxay fududeeyaan availability-ga iyo accessibility-ga qaadku inuu gaaro Soomaaliya oo dhan macnaheedu meel walba oo Soomaaliya ah inuu qaadku gaaro 7 subaxnimada uu ka dago waxa fududeyn jiray diyaaradaha qaadka Kenya marka anaga qaadid ahaan waxay noo ahayd harm reduction dhibaato hoos u dhacday macnaheedu maaha inay suushay macnaheedu maaha inuu dalka dhan ka tagay dabcan baddu ka soo galayay Jubaland buu ka soo galayay mid Ethiopia baa soo galayay laakiin is estimated qiyaas ahaan waxa la qiyaasaa 60 up to 70% qaadka iman jiray inuu hoos u dhacay meelaha badbaaday madaxweynaha waxa kamid ah meelaha ka fog xadka Kenya iyo Ethiopia oo ay kamid tahay sanaagta fog oo ay kamid tahay garaacad iyo dhinacaas marka loo kaco Dhuusamareeb dhinacaan marka loo kaco eel iyo caloolo iyo qandara iyo meelahaas oo dhan waxa fududeyn jiray diyaaradda geyn jirtay meel u dhow laakiin dadkaas way badbaadeen waxa kale oo aad uga badbaaday oo uga raystay dadkii reer baadiyaha waxa kale oo aad uga badbaaday oo uga raystay oo iska badaayayba qaadba markii Kenya waayeen dad badan oo caasimadda iyo meel walba Soomaaliya jooga sababahaas iyadoo lagu saleynayo uma arko in ay tahay xilli dib loo furo ama wax dib loogu furo waxaan taas ku sii darsanayaa runtii xaaladda xushmadda iyo karaamada mudan oo aad ku dhaqaaqday talaabooyinkaaga ugu horeeyay oo ahayd inaad booqato dadka abaaruhu sameeyaan inaad ergey gaar u magacawdo arrintaas u xil saarto runtii waxay ahayd talaabo muujinaysa dareenka mas'uuliyadeed ee ku saaran dadkii aad indhahaaga ku soo aragtay madaxweyne iyo baaqi shucuurta lahaa aad nala wadaagtay dadkaas maanta ma mudna waxay u baahan yihiin diyaarado gurmada oo raashin iyo biyo sida laakiin diyaarado daroogo iyo xaaraan wada oo lagu furanayo sanuudda yarta ah gabaabsiga oo ay biyo iyo caano carruurta loogu gadi lahaa Kenya qaadanayso taas waxaan isleeyahay xal ma aha mudan madaxweyne waxaan ahay resource buuxda oo 15 sano ka soo shaqeynayay akhriyay how to tackle drugska iyo ku soo guuleystay waddanka UK dawladdii hore ku guuleystay inuu ku qanciyo in manhajka waxbarashada lagu daro book ka qoray so many awards ku wingareeyay waxaan isleeyahay waxaan ahay resource Soomaaliyeed oo diyaar u ah si volunteer ah inaan tala bixin ka siino arrimahaas u tala badso waddankeenu unfortunately ma laha advisory body daraagada ka tala bixiya waana masiibo weyn oo haysata arrintaasna waa kugu boorinaya in la sameeyo oo culimo lagu daro oo aqoonyahan lagu daro oo diyaar baan u ahay si tabaruca inaan arrintaas uga qayb qaato marxaladan hadda shirka kan igad oo aad ka qayb gali doontid 2 week kadib oo ay dowladda Kenya wasiirkeeda ganacsigu sheegay in qaadka dib loo furi doono maalinkaas la saxiixi doono mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay u tala badso xilligan abaaraha xulxul jiraan xilli la furo ma aha in dhibaato lagu filan farqan ku haysanaa midka hadda dhulka iyo badda iyo Ethiopia ka soo galaa ka badan intaas baa Soomaali dib ugu filan wajiga labaad saan u gudbi lahayn oo asagana u tagal gareyn lahayn aan u diyaar garowno laakiin mid hor leh oo lagu guuleysto la joojiyay in dib loo fura anigu wax hal Soomaaliyeed ma arko
go-aanka adaa iskale laakiin wixii tala ah waa kula leenahay diyaar baana kula nahay expert resource ah oo knowledgeable ah oo arrintan contribution wax badan kaa siin kara iyo tala bixin baana diyaar baana u ahay mar kale inaan wixii tala aan ku siino si maaragtay voluntary basis ah aad baan kuu salaamayaa ilaahay ha kuu fududeeyo hawsha ka hortaal guulaysaana ku leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu